والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaanu maanta shirkan jaraa'id u qabanay in aanu ilaalino badbaadada iyo midnimada shacabka reer Booco taasoo ah waqtigan lagu jiro waqtigii diiwaan gelinta way furan tahay in la soo dhaweeyo gudoomiyaasha xisbiyada iyo musharaxiintaba laakiin lama gaadhin waqtigii ololaha lama gaadhin sifa sharciyana ololuhu uu bilaabmaya komishankana waxaan leenahay sidii odayaasha horeba sheegeen waa inay dhexdhexaad noqotaan oo xadidaan xisbiyada socodkooda iyo dhaqdhaqaaqooda waxaanu halkan ka cambaareynayna oo aanu la hadlaynaa maamulka golaha deegaanka waliba qaas ahaan maayarka in hantida qaranka uu hayo ay bulshada u siman tahay aan cid gaarana loogu ololeyn karayn aan cid gaarana looga faa'iideyn karayn waxa weeye hantidu waa amaano qofku markuu xildhibaan yahay bulshada ayuu dhaartay dhaar qaran oo dastuuri ayuu maray ma aha in la kala gudbo xisbiyada qaranku waa dimuqraadiyaddii aynu ku gaadhaynay kursigii madaxtooyada shacabkana waxa uu furan inay codkooda si ikhtiyaariya u bixiyaan xubinta ay u gartaan inuu hogaamin karo ay doortaan waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad leenahay war shacabka iyo bulshada yaan la kala qaybinin xilligan dhaqdhaqaaqa waxa weeye diiwaan gelintii uma baahna campaign iyo olole in la hoos cararo in lagu